Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada kanaalka Somali Science. Phobos iyo Deimos. Insha Allah waxaan wax ku ogaan doonaa labada dayax ee meeraha Mars ama Mariikha. Inta aan ku guda jirno muuqaalka, waxaan adeegsan doonaa meeraha Mars. Ku soo dhawaada muuqaalka. Xaqiiqooyin ku saabsan dayaxa Phobos. Labada dayax Phobos iyo Deimos waxaa weyn Phobos. Sidoo kale, labadan dayax Deimos iyo Phobos waxaa meeraha Mars u dhow dayaxa Phobos. Phobos maalintii wuxuu wareegtaa 3 wareeg, waxaana sababay dhawaanshaha uu u dhow yahay Mars. Dadka ku takhasusay cilmiga astronomiga ma awoodin in ay dayaxan arkaan ilaa qarnigii 19aad, markii astronomer Mareykan ah oo lagu magacaabo Asaph Hall uu soo helay sanadku markuu ahaa 1877 bishii Agost 18. Heerkulka dayaxa Phobos marka uu gaaro meesha ugu sareyso ama maalin qoraxeedka wuxuu gaaraa -4 degrees Celsius, habeenkiina mise maalintan qoraxda jirin wuxuu gaaraa -112 degrees Celsius. Xaqiiqooyin ku saabsan Deimos. Labada dayax Deimos iyo Phobos waxaa soo sheegnay kan ugu weyn inuu yahay Phobos. Deimosna wuxuu noqon doonaa kan ugu yar labadan dayax. Sidoo kale Deimos waxaa soo helay astronomerkii soo helay Phobos sanadku markuu ahaa 1877 bishii Agost 12. Kaliya waxay kala horeeyeen 6 maalin. Marka aad fiiriso oogada Deimos iyo Phobos, waxaa jilicsan Deimos. Heerkulka celcelis ahaan heerkulka Deimos waa -40.15 degree. Badanaa wuxuu la mid yahay Phobos, kaasoo celcelis ahaan ahaa -4 degree Celsius maalin qoraxeedka mise ilaa uu ka gaaro -112 degree Celsius maalinta aan jirin qoraxda mise habeenkii. Waxaa kaloo ogaataa labadan dayax ma jiro mid khilaaf aljawi mise atmosphere leh, meesha dhulkeena uu leeyahay 4 atmosphere. Asalka labadan dayax weli saynisyahanada ku takhasusay cilmiga astronomiga muran ayaa kaga jiro asal ahaan labadan dayax meeshay ka yimaadeen. Waxay idin la jecleedahay inaan idin soo gudbiyo muuqaalkan si aad u hesho muuqaalo badan oo ku xiiso geliya. Please ku soo biir bahda kanaalka Somali Science. Mahadsanidin.